hay-adani oo ah mid gaar loo leeyahay ayaa wakhtigani oo lagu jira xaalado abaareed oo adag ugu talagashay in shacabka abaaraysan ay ku berber istaagaan lacag dhan 1 milyan oo bir halka shaqo abuurka dhallinyaradan ay ugu talagaleen lacag dhan 10 milyan oo bir oo aan dulsaar lahayn. waxaa intaasi dheer in ay shirkadu soo bandhigtay barnaamij loogu talagalay in ay bulshadu kaga qayb qaataan deeqda abaaraha lambarka ah xidig 873 sallaan amaba iyadoo la isticmaalaya hanaanka fudud ee applicationka ayaa waxaad si fudud uga qayb geli kartaa gurmadka abaaraha adiga oo ku dhufanaya ugu deeq abaaraha cadadka lacageed ee aad awoodo. kulan ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Farax iyo mas'uuliyiin heer deegaan ah ayay hay-addu ku shaacisay cadadka lacagta ay ku deeqday. mudane Ibraahim Cusmaan Farax madaxweyne ku-xigeenka deegaanka oo ka hadlay kulankani ayaa aad ugu mahadceliyay hay-adani. inaad wanaagsan weey waxay maanta inoo la yimaadeen wada shaqaynta aad la leedahan deegaanka gobol bank jirin baa ayaa jira marka waxyaabaha dhibaatooyinka xagga conventional bankiga ka jira wax badan oo ka qabateen baa jirto deegaan ahaan microfinance aad sheegteen boqolkiiba 90 coverage-kiinu inuu yahay kulli arin aad u wanaagsan oo baahidii ka jirta meelo badan dadku ay ka cabanayeen wax daboolaysa weey marka arrimahan imika jirana soo kale inaad ugu soo horeysaan oo deegaankeena baahida iyo culayskan hadda imika abaaraha ka jira wixii dadkeena la qaban lahaa inaad noola timaadaan at the same time xitaa lacag yar oo seed money ahaan baa noqotay shaqo abuurka loogu talagalay inaad isxilqaamtaan oo maanta noola timaadaan arrin aad u wanaagsan weey inaad kulleen gutigan jira abaaraha fagarayaal kala duwan ma isla qaadanay hadda ka hor gudiyaal kala duwan baa la asaasay siyaabo kala duwan baan isku daynay inaan wixii saameynta ay maaragtay abaaruhu hadda leeyihiin inaan si degdeg ah uga jawaabno. geestiisa waxaanu wareysi la yeelanay mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ah mareeyaha hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Race microfinance ahaan waxaanu suuq qaban qaabinay inaan ka qayb qaadano xaaladda abaaraha wixii tabartayada ah waxaanu qorsheynay inaan ka qayb qaadano 3 nooc inaan ka qayb qaadano tan koobaad waxa weeye inaan lacag toos ah markan hore baan ugu deeqno lacag 1 milyan oo tabartayada ah iyo sidoo kale lacag 10 milyan oo shaqo abuur ah oo aan wax ma garanaysaa ay dul saar lahayn 10 milyan markaan leeyahay macnaheedu ma 10 milyan oo guud ahaan adeegan qabanayna shaqo abuurka sanadkan oo 10kaas laakiin 10kaasi waa lacag aan u qorsheynay in aan wax ma garanaysaa faa'iido laga sameeyay si dhaqaalihii deegaanka ay qayb uga noqoto oo qayb qaadano laakiin ka guud ahaan waxaan noo qorsheysan sanadkani lacag la 500 milyan ah inaan shaqo abuur ku sameeyno marka 10kaasi laakiin waxaan si gaar ah ugu qorsheyn doonaa inaan waxba iyadoo dulsaar laga qaadin ama wax faa'iido ah batatan baan laga qaadin deymahan bixino guud ahaan waa deymo waafaqsan shariicada islaamka sidoo kale waxaan sameeynay oo aan rajaynaynaa inay saameyn badan yeelato platform ama ma garanaysaa application abaaraha lacagta loogu ururiyo platformkaasi wuxuu ka ururin doonaa waxaan abaaraha lacagta uga ururinaynaa dadkii isticmaalayay sahayda iyo maxaa la yiraahdaa Race microfinance macaamiishaydii iyo cid kastoo isticmaasho commercial banks ama bangiyada kale ee private ka laftooda marka qofka application ka galo waxa marka hore soo baxayso ugu deeq abaaraha markaas qofku wuxuu ugu deeqi karaa ninba inta uu karaankiisa marka halkaasina waxaan qorsheeyay waxa qiyaas ahaan noo soo baxayso hadiiba dadka qofka ugu yar celcelis uu konton bir ugu deeqo maantana dadku aad bay wax ugu deeqayaan oo way dareensan yihiin dadka walaalahooda ee tabaalaysan lacag la 35 milyan ah in muddo ku yar oo kooban ayaa sawirka hadda noo soo baxayso laakiin qaabka looga shaqeeyo dadka sidoo dan qadaan bay kulli ku xirnaan doontaa laakiin ku dadaalina waxayna aad ugu badan tahay lacag inta ka badan in laga ururin doono haddii la yiraahdo ay dadku ugu deeqi doonaan walaalahooda tabaad ma garanaysaa abaaruhu saameeyeen. shirkadani oo bixisa shaqo abuur waafaqsan shariicada islaamka ayaa tan iyo muddada ay asaasan tahay shaqo abuur u sameysay bulsho dhan 5,000 oo qof oo ku dhaqan deegaanka oo ay ku kharash gareysay adduun lacageed oo gaadhaya 200 milyan oo bir.